ولا شيء فرحية هي محلها ومت سمر المحوايسة. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داوذي الميل كستواد أدوك كجوكتان هل كان نقد داونيسان وبرتي يوتيوب كيولي بفيسبوك عن كل نهائي براين جنال qodobada inta uu socdo barnaamijkeena Soomaali Celebrity News aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah uguna waaweyn waxaa daqiiqado ka hor magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu dilay Cismaan Salaad Daahir oo loo garan ogaa atooraha badda. Hello Ahmed ساتة يا ستة بيب أوكي في أنا عارضة سميحة قليل oo markii ugu horeysay ka masayrisay Dirisle Cabdi adaba waxaan idin haynaa Dirisle Cabdi oo muuqaalkiisu isbedelay kadib markii ay Samiixa la hadashay jacaylkeedii hore ama exkeedii sidoo kale inta uu socdo barnaamijkeena waxaad ku daawan doontaan hadda xaaladdu hadda kaftan ma taagna dhabtay taagan tahay maxaa ka jira hadallada baraha bulshada la isla dhexmarayay saacadihii ugu dambeeyay ee ah in Samiixa Khaliil iyo waliba ninkii ku tilmaamay in ay caabudo shaydaanka oo xiriir hore uu ka dhaxeeyay haddaba ogow caawa waxaan idin haynaa xog xasaasi ah oo ku saabsan arintaas la sheegayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaa inta uu barnaamijkeena socdo ku daawan doontaan marka ugu horeysa waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka aad like noo saarto aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran baraheena YouTube-ka iyo waliba Facebook-ga ugu horeyntiina daawada waxaa daqiiqado ka hor magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu dilay Allah u naxariista ee atoorihii badda liido ka hor dilka intaan loo geysan ayaa waxa uu saacado ka hor afur u qaybinayay dadka masaakiinta ah ee ku sugan duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ee aan awoodin inay afuraan Allah u naxariista ee marxuumkan ayaa sida aad hadda u wada jeedaanba waxa uu 3 saac ka hor live uga jiray bartiisa Facebook page-ka uu ku leeyahay sidoo kale waxa uu live-ka ku soo daynaya asagoo si toos ah dadka masaakiinta ah ugu qaybinaya afur ilaa ay hadda lama xaqiijin karo cidda ka dambeysay dilka walowna loo xaqiijiyay in atooraha badda la dilay warar hadda la isla dhexmaraya ayaa waxa ay sheegayaan in atooraha ay dileen qolyaha argagixisada ah maadaama uu ku jiray askarta booliska Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu ahaa indhaha dhalinyarada ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho marka ay maalinta Jimcaha imaadaan badda liidana halkaasi waxa uu ku qaban jiray showyo si free ah dhalinyarada iyo waalidiintoodaba ay ku raaxaysan jireen Allah u naxariista ee ma ahan marxuumkan qofkii ugu horeeyay sidaanoo kale uu ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed hal door oo lagu dilayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wixii wara oo ku soo kordhana waxaad ka daawan kartaa barnaamijyadeena kan ku xiga sidoo kale waxaan idinka baryayaa in aad u duceysaan in Ilaahay naxariistii janno uu geeyo Samiixa Khaliil iyo Dirisle Cabdi oo sida aad wada ogtihiinba baraha bulshada ka ah laba qof oo lamaana ah xiriir jacaylna uu ka dhaxeeyo ayaa markii ugu horeysay Samiixa waxa ay ka masirsiisay Dirisle Cabdi qurux ku dhiigle oo ah asna YouTuber Soomaaliyeed oo ka agdhow Samiixa iyo Dirisle ayaa maalmahan bartiisa YouTube-ka waxa uu soo geliyaa muuqaalo quseeya Dirisle Cabdi iyo waliba Samiixa ugu horeyntii qurux ku dhiigle ayaa Samiixa waxa uu weydiiyay in ay wacdo exkeedii hore isla markiiba waxa muuqaal ahaan isbedelay sida aad u wada jeedaanba Dirisle Cabdi oo xoogaa qushuucay laakiin sheekadu intaas kuma ekaan ee Samiixa ayaa waxa ka qabtay telefonka exkeedii ama jacaylkeedii hore waxaana dhex maray hadalladan exkaada inaad wacdid hay koolay waa koolay bismillah أوه ما أنا طلعت لقول جزيرة زمان بابا لو دي المحل يقول أكثر لو جزيرة كتوية بيع لقيت طرف الصوها ما سميها يسوي قصة مسح Hello أحمد ساتة يا ستة بيب
وكوفي عن عرضه والله الحمد لله معايسة. وكوفي عن عاديات والله بالله وقت دير اسمه صومناني هذيك سما سيفي عنا. waxaan rabnaa maadaama ay bil Ramadaan tahay inaan ku dhaho wixii hore noo maray ay karaan ku sida inaan ku dhaqmi jiray waxaas camal محمد عشان محاسو كذا. وحبا just مسكسو نقوم كرنا عمل حريركني يعني. مبلاونا مركبة يا متهنا حبيبي بسيس ما حاول اكتب ومرة كانت حريركي موضة معي. ميسا عليك ردت ما هذا حريركي مدوه وصلوا. سبب لكيني لو أسامي ساوي الواحد شلو أدري ساوي. والواحد جعشها بيبي أبي واساي. ما واحد يعني هذا أبيبي أو كذا أبيبي عادي وعليك واحد عادي خلاص عطاه. ما يوقف شو هذا؟ باي باي. سامعني لا والله برجعت مليون. شو هم البلوك؟ والله بيوم عملية لك حالي وحيسوي. وحصل عليه واي. المكان وايد ودرير جري ما تبي تصير الله. مبروك لله معايا. رجعت مليون. والله ما حكيت والله بالله. لك معايا. He still loved me. You see that? So baby, you guys, what you did? Yeah. والله بتجر وحضر وش يا حيوان وش كير فرق. والله لك شوية ولا. سمع بوكرنا النور بقى. daawadayaal sida aad muuqaalka aad ku aragteen ba Dirisla Cabdi xoogaa qalbi ahaan uu isbedelay inkastoo ugu dambeynna uu taleefanka ku damiyay ninka ay la hadlaysa Samiixa Khaliil isla markiiba qaybta commentiga ayaa waxa lagu soo qoray Samiixo maxaad ka wadaa oo saan oo dhan aad Dirisla uga maseersiinaysaa laakiin waxaan dhag jalq u siin Samiixa Khaliil sidoo kale sheekadan ayaa waxa ay ku timid barnaamij uu weydiinayo qurux ku dhigle Samiixa iyo waliba Dirisla Cabdi haddaba adigan haddana daawanaya maxay kula tahay ma kula saxan tahay in ay Samiixo falkaasi ku kacdo waliba saaxiibkeed oo la fadhiya ay nin kala wacdo sidoo kale Samiixa Khaliil ayaa waxa laga hayaa aniga Dirisla Cabdi aniga kaliya ma ahane gabar kale isha hadduu ku fiiriyo waan ka bixinayaa dadka qaar ayaa waxa ay leeyihiin Samiixo haddii adiga sidaan aad u hadlaysid maxaa ka wadaa oo adigana aad sidaas oo dhan Dirisle qalbiga aad uga jibinaysaa laakiin hadalka ugu weyn ee Dirisla Cabdi xoogaa qashuuca geliya ayaa waxa uu yahay ninka ay Samiixa ay la hadlayso oo iska soo jaray baby iyo waran ereyga baby ayaa inta badan waxa adeegsada lamaanaha oo xiriirka jacayl ka dhaxeeyo iyo waliba kuwa noloshooda ku midoobay ereygaas baby oo ninka ku yira Samiixo ayaa baraha bulshada waxa uu ka dhaliyay hadal hayn aad u fara badan sidoo kalena ninkii maalmahan baraha bulshada ku haystay Samiixa Khaliil oo laga helay xog xasaasi ah ninkan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu aad ugu dhaganaa Samiixa Khaliil oo mareen iyo waliba maslax mideeye waxa dhacday in uu sawirkiisa TikTok iyo waliba Instagram-ka uu saarto sawirka Samiixa Khaliil isla markiiba qiimeen baraha bulshada laga sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday loona batay in ninkan uu Samiixa uu jecel yahay uu sana u sheegan karin sidaas darteedna uu qof walba uu yiraahdo shaydaan ayaa caabudaan ay ka masuul tahay Samiixa maadaama ay jacaylkiisi wax la qaban weysay haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah horta Samiixo marka hore ma ogashahay in uu xiriir jacayl ninkaani dhex maro sidoo kale qasamiya qofka hadii uusan ku rabin in aad maanto dhan aad ku gees wareegto muuqaal walba uu soo dhigana aad tiraahdid hadduu gacanta kor u qaado waxa ay caabudaa shaydaanka isbuuc iyo xoogaa ayaa laga joogaa marka ninkan aan u soo jeediyay talooyin aad u fara badan sidoo kale waxaa jirtay culimo ay saaxiibo yihiin iyo qaar kale baraha bulshada ka soo arkay ninkan arintiisa in ay si live u dhaheen walaalo waa khaldan tahay ee ummadaas muslimiinta ah ee aad u gaftay waxaan ka rabnaa si babliga ayaad ku raali gareynaysaa maxaa yeelay marka horeba qaab babliga ayaa ku dhaleeceysay in uu soo fariistay ayaa waxa uu sheegay in uu khaldana su'aalooyin badan oo mugdi uga jirayna lagu qanciyay haddana uu diyaar u yahay iska cafiyaan Samiixa Cumreen iyo waliba maslax mideeye
isla markiiba Samiixa waa ay ka soo jawaabtay waxa ayna ku tiri aniga aakhiro iyo adduun kuma cafinayo. Maslax Mideeye oo xoogaa Samiixa ka horeeyay ayaa isna waxa uu sheegay in Ilaahay dartiis uu cafiyay. haddaba maxaa ka jira arrintan jacaylka ee la sheegayo in ninkan uu Samiixa u qabo? adiga ayaan ku deynay daawade taas sababaha ugu weyn ee arrintan keentana sida aan idin sheegay waxa ay tahay in ninkan daqiiqad kadib sawirka Instagram-ka profile-ka u saaran iyo waliba Facebook-ga iyo Instagram-kaba uu badbedelayo xilli kasta. haddaba daawade adigan haddana daawanaya maxay kula tahay?